rajeynayaa. Waaya saakay waad soo dhaweynaysaa doorashada golaha deegaanka. Way soo dhaweynayaa dabcan reerteedaan oo degmada maxaa soo yimaadeen awalba maxaa qoys ku filayeen tan iyo la kala yeelay. reerteedaan dhammaantood way soo dhaweynayaan aniga khaasatan waan soo dhaweynayaa. saacadda la sii diiway tigida lagu kala kalaxay iyo si loo daawan lahaa doorashada ilaana isma qalbeene. Waaya waqtiga la joogo doorasho qof iyo cod dalka ma ka dhigi kartaa? aad iyo aad haduu jeedinta doorashada golaha deegaanka ka dhacday taasoo jirta aniga waxaan dhahay ka dhiyo doorasho qof iyo cod dalka aniga la soo qabto maanta dadkii kale baa la soo qabanayaa. doorashada meeshaan ka dhaceen muqdisho bisha ka dhacday sababta tahay gobol kasta sumcad adduunka meel kasta isagoo magaxada jawaamid meeshaan waxa uu si dhoodhooba saacada ma jiraan isku macaarif waa ku tacan yihiin hawlada iyo ma aadi karaan oo kuma karaan marka yaa u dhaco sababa jooga meel kasta aysa dhima dadkaa ku caburiyaan dhiilaay. Waaya marka waxaad leedahay rayida madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo in muddo 3 sanadood dabcan waxba kama jiraba. waxba kama jiraan waxaas waa dad wuxuuna gacanta laga saaraade meeshaan anaga waxaan u adeynayno odaysiisa sax noqon lahay inuu gobolka socdaali karo hadda isuma socdaali karaan oo dilad aye ma la dhihi karaa dalka waqtiga la joogo iyaga xubnihii mucaaradka ay ku dhagan yihiin madaxweyne xasan sheekh doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa. aad iyo aad ugu dhici kartaa way soo horjeeday daasho waxaan waxba kama qaban karaan. aye shacabka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan maxay kaga dhigan tahay doorashadii saakay ka bilaabatay Muqdisho? farxad iyo guul bay u tahay inta noloshooda ka dhamaan waa ku farxi doonaan waxay ku soo horjeedaan waxaa leeyahay